ilaah baa mahad leh mar labaad anigoo madaxii ugu sarreeyay wakaaladda horumarinta aadhe ayaa halkan lagu kulansiiyey waxaan lambarkow ka hadlayaa abaaraha jiray adag waxaan ilaahay ka baryanaa saa dabayshu isku bedeshay ee cimiladu u san tahay inuu ramxad allah inoo shubo oo abaartaa kulul ee ummadda wada haysataa meel kastay joogtoba ilaahay naga soo jabiyo waxaan rajaynayaa insha allahu inaynu ilaahayna ka baryanaa inuu roobka sida ugu dhaqsaa badan laynoo bilaabmo lambarkow waxaan u mahad celinayaa shaqaalahan horena uga tirsanaa badankooguna aan meesha ugu wada yimiday oo anugu waxaan ku faanaa ninkii lowrkii ugu horreeyay ku rogay mashruuca waddada Ceergaabo muddana ka soo shaqeeyay inta ugu badanna waqtigiisa ku soo qaatay walaal mashaariic kale ka soo shaqeeyay laakiin mashruucii muddada dheeraa oo kamid ahaa waxaan halkan ku leeyahay saaxiibo fara badan shaqaalaha mashruucan ka shaqeeya waxa weeyaan dad naftood hurayaala waa dad qaranka meel kaalin weyn kaga jira waa dad taariikhda hay ku suntanaan doona haddii la yiraahdo waxaan rajaynayaa iyaga laftarkooda noloshooda inay qayb weyn ka yahay mashruucani sababtoo ah beritoole markuu dhamaado haddii la yiraahdo waa wada ka sheekay taariikhdu iyada isqorta qof kasta markuu meesha soo maro amba la sheekay ku soo xaadirto wuxuu oranayaa mashruuca qayb baan ka ahaa halkaasaan kaga jiray mar haddii taariikhda saan u wada sheeganano waxaan oran lahaa barbarkay ka baxdaa bakay la qaleen waxaan anigu waftigan halkan maanta u hogaaminayaa shaqadaas socotay sidii loo dardar gelin lahaa inaga laftarkeenu waxaan iskula xisaabtami lahaynaynu muxuu ahaa kolba shaqada halkay marasiyo sidii intaynu arsan saan u wada jidi lahayn baynu ayaynu ka wada hadli doonaa waxaan rajaynayaa markaa qof waliba wuxuu galay iyo wixii uu gudo in loogu caaranisi doono haddii la yiraahdo mashruucu waa gabagabo uu sii jeestay mashruucu wax yar iyo guushii baa hadhay waxaan rajaynayaa in guntiga dhiisha la iskaga dhigo haddii la yiraahdo waxaanu horeysiin doonaa qaybaha daamurka saynu dhameystiri lahayn haddii la yiraahdo markaan qaybaha daamurka dhameystirna haddii la yiraahdo waxaan ku xijisiin doonaa biyo saarada wixii noo dhiman haddii la yiraahdo marka waxaan awooddeena isugu geyn doonaa haddii la yiraahdo inaa daamurka noo dhiman insha Allah saynu dhamaantiin uga wada qayb qaadan lahayn dadajintiisa waxaan hoos isku wareysan doonaa maamulka mashruuca gacanta ku haya iyo shaqaalaha weynaha wakaaladda horumarinta ku sugan goobaha annagoo ogaan doona duruufahooda gaar ahaaneed annagoo ogaan doona qof waliba wuxuu mutaystay haddii la yiraahdo insha Allah tacaala waxaan bogaadinayaa injineerka gaar ahaan halkan gacanta ku haya Axmed Mahdi waa nin muddo badan ka soo shaqeeyay muxuu ahaa isaguna lamida injineerada kale mashruucan buraale laftarkiisa iyo Xuseen iyo teamka Cabdiqani ayaa ka wada mid yihiin kulli waxa ragii meesha ka wada shaqeynay waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala waqtiga kooban gudaheed inaynu ku soo khalisna haddii la yiraahdo intaynu hadhay daamurka gelin hore iyo gelin dambaba saan maalintii dhaweeytolay inagu soo amray in la shaqeyn doono waayo markaynu halkan oo kala maranay waxaan xasuustaa markii carakaawada la isku xidhayay halkan muxuu ahaa habeenkii ka shaqeyn jirnay shaqada waxaanu gali jirnay 12 habeenimo ilaa 12 maalmood dhisaanka berigii qorshii la qorsheeyay waga programku wuxuu ahaa 6 bilood in inta la isku xidho waxa ilaahay qadarayo annagana guul noo ahayd in waqtigaasi aan